الصبح بدا من طلعته. aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Maxamuud Nuur oo buush ku magac dheer. anigu waxaan ku dhashay meel miya oo laga xukumo magaalada la yiraahdo Bandarbayla oo ku taala gobolka Boosaaso. reerkayaguna wuxuu ahaa reer miya waxay dhaqan jireen geel iyo ari. marka waxaa dhacday maalmaha ka mid ah macallinku inuu dhowr jeer uu ila dhacay. sababta uu sheegay ila dhacayna waxay ahayd uu idlaayay quraanka ardadu loox bay ku dhigataa, marka looxa in aan kala durjiyo ayuu dhowr jeer weydiiyay. aniguna waxaan doonayaa quraanka inaan degdeg u dhameeyo waan isku dhaweeyay. adeerkay macallinkii isla markiiba feer buu ku bilaabay. gidaarka ayuu sidaa ugu qabtay isagoo halka cunaha dunta qabanaya. marka ka bacdi ayuu kaxayay oo wuxuu geeyay stationka uu dhacay. marka ulihii uu ila dhacay waaga wali dhabarkayga ayay ku yaalin oo kama ayan tirmin. marka macallinkayga ingiriiska ii dhigayay ayaan maalmaha ka mid u tagay oo waxaan weydiistay inuu baro bible-ka. macallinkaygana wuxuu siiyay buug markaa uu casharada nooga marin jiray oo casharo laga soo qaatay bible-ka. marka sidaa ayaan ku bilaabay. waxaan marka aan waday arintaa muddo 9 sano. anigase waxaa go-aankaygu iga dhamaa in aan muslim dhameeto aanan sii raacin aan noqdo nin masiixiya. waan ka tegay dalal kaleeto ayaan tagay oo ay joogaan dad masiixiin ah. su'aalo badan baan weydiiyay, in badan baan markaan baarayay. waxaa dhacday markay taariikhdu ahayd 1978 in jabhad laga furay dalka Ethiopia oo jabhadaasi ay fureen dad horay dawladii Soomaaliyeed jirtay mucaarad ku ahaa iyo dad ka soo baxsaday inqilaabkii fashilmay 77. marka waxaan tagay anigu bishii December 25 magaalada Addis Ababa oo aan ku biiray marka jabhadii la magac baxday jabhada badbaadinta Soomaaliyeed. ma aanan ahayn nin muslim ah, marka kama qayb gali jirin salaada ay tukanayaan, kama qayb gali jirin wacdiga la isu jeediyo. marka dadku waxay oran jireen war maxaad uga soo qayb gali weysay? may anigu dagaal baan u yimid ka qayb gali maayo taa baan oran jiray. marka kolka aan imi Mareykanka waxaan bilaabay inaan booqdo kaniisado kala duwan. qaarkood marka runtii waxay ugu riday argagax weyn. waxaan arkay kaniisadihii oo dadkii ay garaacanayaan qalabka musiga ee laga garaaco night club-yada, meelaha lagu cayaaraha qoobka cayaarka. marka aniga waan qaadan waayay dad doonaya inay ilaah caabudaan oo tukanaya oo haddana qoobka cayaarayo oo qaylinayo oo boodboodayo way igu adkaatay. waxaa kaleeto haddana igu adkaaday dadkaasi labiska ay qabeen dumarkoodii oo dhar aad iyo aad u gaaban oo cawradoodii ay muuqato ku tusaya. raggii iyo dumarkii oo meel wada fadhiya oo haddana ninku bilcaantiisi uu gacanta qabsanayo oo ku dhigayo haddana uu salaxayo. maxaan oo dhan aniga marka dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ayay igu noqdeen. marka anigu waxaan doonayay dariiq sax inaan qabsadee dariiq xun inaan maro ma aanan doonayn. marka waxa igu dhalatay dadkii aan ku aqaanay Soomaaliya kaniisada Mennonite Missionka ka tirsanaan jiray sidaan ma ayan ahayn. marka xageebay arrintu ay ka cuyubanta. kaniisada dhowr baan tagay mise kulli inta oo dhan waa isku mid weey. waxaan ogaaday inay xataa waxa ay aaminsan yihiin xataa inay kala duwan tahay. marka ayaan maalmaha ka mid ah waxaan baaray buugga laga baaro cinwaanada. kolka ayaan waxaan helay kaniisad yar oo Mennonite oo ku taalay magaalada Baltimore Maryland gobolka la yiraahdo. ka bacdi waxaan u wareegay
magaalada Washington DC oo aan ku biiray kaniisad Mennonite-ku ay leeyihiin markay taariikhdu ahayd 1982 waxaan joogay Mareykanka muddo sanad ka bacdi waxa iga dhamaaday sharciga aan ku joogay marka waxaan ku noqday Afrika Soomaaliya Kenya markay taariikhdu ahayd 1985 ayaan haddana waxaan ku noqday dalka Ethiopia oo aan doonayay inaan diin ka faafiyo diinta masiixinimada marka Ethiopia waxay yaqaaneen anigoo jabhada oo muslimiin ku dhex jira waxaan u tagay anigoo leh Christian baan ahay Soomaaliyana soo maray marka taa way qaadan waayeen qoliyo joogayna waa igu dirdireen oo waxay yiraahdeen ninkan waxa weeyaan waa jajus uu soo dirsaday ay soo dirsatay dawladda Soomaaliya marka bilowgii 92 ayaan waxaan soo galay Canada one sponsorship aan ka helay markaana aan halkaan imina waxaan bilaabay faafintii diinta masiixinimada oo aan horay u faafin jiray laakiin waxaan kaleeto oo aan bilaabay haddana bal inaan haddana quraankii aan akhriyo inaan akhriyo taariikhda islaamka anigoo weli diintii masiixiyada faafinaya waxaan haddana aan bilaabay inaan akhriyo taariikhda masiixiga dadkii muslimka ahaa naga soo horeeyay oo soo galay dhulkan caruurtooda maanta waa wada masiixiin qaarkoodna diinba maba haystaan qaarkood ilaah ma aaminsana marka anagu kuwa waxaan uga duwanahay ma garanayo marka waxaa fiican qofku inuu xisaabtamo oo uusan raacin dalaalka adduunyadan aynu ku jirno waxaan kale doonayaa inaan ku daro hadalkayga dadka Soomaalida ah kaniisadaha masiixiga ku xiran kuwa doonaya inay ka mid noqdaan walaalayaal waxaan idin sheegayaa in aad diin sax ah aad haysataan oo laydinku soo koriyey oo maantana aynay bannaan tahay in aad sii baartaan runta aynan waqti aynan iskaga dhumin meelaan marnaba laydinka aqbali doonin الصبح بدا من طال